ورثني وليدا وليدا مجلسه وليدا ورثني وليدا وليدا مجلسه وليدا تويدي الوالد وعيسى تدوينا عقيتي والد وعيسى ويلكي عرورتي والد وعيسى إيه وعلانا والد وعيسى كوي وح lagu baray ama lagu barbaariyay canshuurtii shacbiga magaalada Hargeysa dadkii ku noolaa laga soo ururiyay wax lagu baray inay ku buumaartay misna dib ugu la noqdaan wixii loo baray inay cadawga ummadda uga difaacaan inay isla ummadii dhexdeeda ku laayaan oo iyadana barnaamij kamid ah ugu dambeynna inaanu gabagabayno barnaamijyo socday oo 26 Juun iyo 1 July oo ah maalintii xorriyadda iyo maalintii midnimada oo aanu u dabaaldegaynay oo aanu sameynay laba barnaamij oo fundraising ah iyo كانوا عن سلهين بالكسو جبجبية ضد يوم إسكت سحر قامة وأنا استعمل واحد جرح رو يرير وكل وقتنا يبغى المقدسو وويلا ويلا معناها عيال بالجيف إنه نقانا وصم ما تمرش أدو قد عيو كلوين وحياة معاصر ما يعني حدنا أنا بهنين وحوين والعجفر بدنا أنا بهنين لما تنقف من توين جني بشي بالحياة قولي بودي جودرية أي سيحنا أيام حتى كوكو ورجلين كرت أنا من تاس أنتي سحر قام كرت جودرية البرنامج أنا بقول ماركت إن شاء الله مركا وحنجعلها هاي أنا بنقعد قدام ما يعني أنتي دكتي فرح بدنا وأنا رجيني إني وأنا إيمان حتى أنا وحن رجينا يا هنا جودرية البرنامج كان سوق عردونا ساسا مركز بقول جناي برنامج كان حسوق الشعب جاي بركة أنتي بنشوف وأي جيستين دجالوجياشي سوماليا وحنا كان أقولها إن آد لو بالإمكانية ضد الصوماليين اللي قالوا ريدي بالمسألة سياري يريدي بالمسألة سياري يريدي بالمسألة سياري بس حقائق بالجرتة واحد تعال هذه يجرو authority معمول هذا يجرو أمورها هذا أما هذا من دولة أما من هذا قبلها هذا قف ضد كم معمولة المسؤولية دي ذلك وهرت always في الدنيا دي دعاء وناجي دعاء لو صار ده سؤال سوق هذا الحكومة دي حسب دي ميليتري كعان كي حالي هذا الحكومة دي محمد سياد بري وحالي هذا أفوين أساسي يعني محمد سياد بري أساسي يعني وحي وسير لها عظام ذي قرن وحي شنو نقول كحرم بوها في الصومالي كجروح وكل مجري وهذا الجري وكليه لكن شعب ذا شغلها حدنا هذه أمركم مدام وودي ميليتري إمام وكذلك وهذا لو حمامله ننهايستا عيدا وأمركيسه وفلايو وهذه هو أمر بحيو شقدي وأمري قبل هالسود اللي كان مركز حكم كي أنت سنين كهاي بسجع عندك وهي لكن شقدي يوم مرنت الدلك وحاجة عندك وهي شعب الصومالية وهذه نقول هاي فروم نقول كل حاجة هذه وش نقول هاي عندك وهي مركز تاسو حنقول إن هاي مركز صاروا سوق عالمي تنبيهدي dalka ka dhacay uu raafiyay anagoo qaran ah oo dawladda bariga ugu awood weyneyd ah waa waxa baxsaday ciidamo kamid ah ciidamadii qaranka oo waxay u galeen Itoobiya oo ay og yihiin wixii loo soo tababaray waliba raggaas saraakiil bay u badnaayeen wixii loo soo tababaray inay ahayd inay dalka kan xuduudihiisa ka difaacaan Itoobiya oo ah cadow soo jireen ah oo shacbi Soomaaliyeedna haysta dhul Soomaaliyeedna haysta kuwii loo soo tababaray in ay ka difaacaan dalka way u galeen oo ay intay ka soo qaateen macnaha iyaga garab safar inay shacbigeennii laayaan ciidamadii qaranku ay ka mid ahaayeen inay laayaan guryahoodii iyo hooyooyinkoodii adeeradoodii iyo qaraabadoodii ay burburiyaan marka ilaa iyo laga soo bilaabo 78 waxa dhacay gobol falo ama ha geysteen qolyahaas ururada ahaa ama ha geysteen ciidamadii ka soo horjeeday oo ahaa ciidamadii dawladda ha yeeshee
sometimes ama marar inta badan ba fulin jiray waxyaabo liddi ku ah shacbigeena oo dhibaato ku ah marka ilaa iyo xilligaas maalinba heer bay joogtay maalinba meel bay maraysay waxay soo gaartay maanta halkaynu taaganahay marka waxaan la isweydiinin oo aan dadkeenu intii isu soo noqda aan la isweydiinin dhibaatada dhacaysa ilaa iyo xilligaas soo dhacaysay ma waxaa samaynayay qurumo kala duwan oo macnaha mid waliba meel gaara ka yimid mise waxaa samaynayay 78 kuwii dambiyadaas iyo gobodfalkaas samaynayay baa weli wada waxaan la isweydiinin horta wataa marka waxaan jeclahay inaan marka gobodfalka noocaasa dhacay wejiyada kala duwan lahaa siyaabooyinka kala duwan u dhacayay inta geysanaysay horta waa inta maanta lagu sheego inay horboodaan siyaasadda Soomaaliya waxa dhacay marka dambiyo kala duwan oo aan inaba xad lahayn markii ay xitaa burburtay xukuumaddii sheeganaysay inay dowlad dhexe oo ummadda dowladda waa ay tahay saraakiisheedii oo aan tusaale usoo qaadan karo General Morgan oo kaleeto inuu ku beeray warlooradii markaas maaragtay markii horeba kasoo horjeeday haykalkii at least waxbaa la haystay dowladdu wax maaragtay u eg baa la haystay walow xilliyadii dambe ay sii weygaroobaysay marka waxaanu leenahay oo aan anagu ku andacoonaynaa sababta aan usoo qaadanayna ay tahay waxaanu gudbinay oo waxaa jirta maxkamad la yidhaahdo International Criminal Court waxaan ka codsanay waxaan u dirnay waxyaabo sawirro ah iyo cajalo waxaan ka codsanay sida ay doonayaan inaan dacwadan ugu soo gudbino maadaama aan rabno dad Soomaaliyeed oo ay dhibaato ku dhacday inaan maaragtay arrinta tan il u bixino maadaama aan dadkii wada heli karin balse inaan fikrigii keeno ideyadiina keeno ma hadii ka gaarto golaha dhalinyarada gaar ahaan qaybtan Holland waa waxay aad iyo aad ugu dadaashay runtii xilli macnaha dhaqaalaheeda iyo awoodeedu aanay jirin inay applicationkaas sameeyaan jawaabtii marka ka timi waa waxay ahayd inaan waxaa muhiim ah inaad lawyer leedihiin idin representative gareeya oo arrimaha sharciga idin hogaamiya taas marka waxay noo maaragtay nagu dhalisay inaan marka baadigoob galno oo aan baadigoobkaan galaynaa uu yahay waxa aan marka ku haynaa waa wax yar oo kooban laakiin inta aanu haynaa laftigeeda intooda badan meelo dad baan kasoo qaadanay qaybo internet baan kasoo qaadanay qaybo meel baan kasoo qaadanay laakiin intii badnayd waxay ku jirtaa shacbiga oo haya oo og qof walba waxay gaaray qof walba waxay qaraabadiisa gaaray iyo wax la mid ah marka barnaamijkaas isagoo aan marka hadhow daawan doono waxaa ka mid ahaa sidaan horadii ku sheegay General Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo dembigaas maaragtay baaqgareynayay iyo kuwa la mid ah marka ma doonayn inaan hebel iyo hebel yiraahdo oo ay meel kale ka timaado hebel maxaad ugu soo dari weyseen la yiraahdo laakiin anagu fikrigan wuxuu yahay intii dembiga gashay oo maamulada iyo jabhadaha ku gashay in la balangareeyay aan eedda la saarin reer hebel iyo reer hebel tan ugu horeysa marka aad baan runtii ugu dheeraaday waxaan jeclahay inaan maaragtay intaas kusoo gabagabeeyo waan ka cudur daaranaynaa hadiiba wax farsamada maaragtay xagga cilad farsamo oo aad nagala kulantaan ama waxayna jeclaysan aragtaan dhammaantiin waxaan jeclahay inaan u yeelo sidaad ogtihiinba sidii loo soo baxay dalkii looga soo tegay dadkii u barakacay dunidana loogu kala fiday waxaa hogaankii qabtay qaranka matalana haweenka maxaa yeelay meel walba ayaga awood ku leh haddii la ballamo ballanta ayagaa fuliya haddii wax la abaabulana ayagaa abaabula haddii dadka loo gurmanaayo barakacay oo geedaha hoos jiifa gabdhaha u gurmanaayo haweenka mahad buuxda ilaahay ka gaarsiiyo hadda waxaan jeclahay inaan u yeero gabdhaha qaranka matala gabar ka mid ah oo lagu faano xaliima sacdiya la yidhaahdaa aadaya loogu mahadsantihiin walaalahayga meesha wada yimid dhammaan waxaan u malaynayaa qof waliba waxa uu u yimid ama isu kaayo keenay waxa weeye maxay ahayd dhibaatada ama burburka waddankeena ka dhacay maanta waxa laga hadlay waxa weeye programka ah maxay ahayd uu hore uga hadlay walaalka Hiirad mudane iyo marweyne kulli intii meesha timid dhan u wada mahad celinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad horta ka gaarto dad isku luuqada isku diina isku afa ayaa nahay haddana maxaa keenay in maalin walba la isdilo burburka iyo dhibaatada iyo barakaca waddankeena u horseeday caruurta laga hadlaayo meesha oo dhibaatadu ay Hiirad ka hadlay
ayaa programka looga hadlaya oo ah caruurta banaanada jiifan qof waliba intii daawatay ama aragtay xitaa hore TV-ga looga soo daayay run ahaantii waxay ahayd wax aad iyo aad looga calool xumoodo ama looga maxay ahayd runtii dhibaato weyn qof kasta damiirkiisa runtii uu ka xumaado maantayto waddankanagii yani aanan kusii dheeraanaynin qof waliba uu og yahay dhibka taagan meel walba loo qaxay laga maxay ahayd laga tegay ayaa waaye dadkeena barakacay ama baaba'ay cidda ka damqanaysa ama u doodaysa ama u dagaalaysa alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala mahada ka gaarta rag iyo dumarba waxaan u malaynayaa maantayto haddii aanan anagu dadkeena saacidin ama aanan anagu waxba isu qaban inaynan cidina waxba noo qabanaynin ama aysan maxay ahayd cid kaleeto noo maqnayn maalin walbaa maxay ahayd dhibka iyo dhaawaca iyo dhiigga daadanaya cidina kama naxdo masaakiinta ama maatida madfaca la iskaga daryaansho cadowgeena soo jireenka ahay ee intaasoo sano maxay ahayd waddankeennii maxay ahayd baalkii shaqana ognahay axmaarka iyo annaga cadaawadda naga dhexaysa ayaa maxay ahayd dadkii annaga mas-uulka ilaahay baa mas-uula nalooga dhiga ama garwadeenka noo ahay waddankii noo keenay axmaar axsaan nagama dhexeeyo daris waan hondiirka waan iskaga egnahay diin ma wadaagno dal ma wadaagno dayradaan oo kala oodan dabka ma kala qaadano maxaa inaga dhexeeya ninkaanaan isku diinta ahayn aanan dhaqan wadaaginin aanan maxay ahayd waxba wadaaginin inuu siduu maanta walaalkay ku noqday oon hoosta u soo gashaday kii aniga ila diinta ahay kitaabka ila sheeganayana aanu dilay culummadii masaajidka joogtay waa la gooyay diinka dadkii loo daalacanayay waa la dilay odayaashii maxay tahay daqarka iyo diyada bixin jiray waa la laayay axmaarka waxa way dabeecad wuxuu u leeyahay oo uu dabeecadiisu tahay inuu maskiin madfac ku daryaasho inuu maatida laayo ninka maatida hadduu axmaar gargaar leeyahay ma gooye nimankii goday joogay ma laayeen dad maxay ahayd intaasoo sano ayay maxay ahayd ogaadeen iyo uu baabi'inayay laynayay maantaytana intuu soo tago muqdisho yimid uu dadka laayaa muxuu u laayaa ardi sababo miyaan tagna ardi sababo waan tagna qaxi markii la qaxay qofkii dadkii ugu horeeyay ee ardi sababo u qaxay ayaan ahay oo run ahaantii ardi sababo tagay ma jecli axmaarada markaa hadda oo jidadka ama la wada sheekaysto lahan axmed soomaali baa taa axmaari ma jecli kuma jecli baa la yidhahdaa waayo markuu rabo inaad wax ka iibsato halkaas intuu kugu dhago ku leeyahay wallaahi billah aniga soomaaliyaan ah soomaali waan jeclahay soomaali waad qonjo ku leeyahay markaad ka dhaqaaqdo ku leeyahay tabaatiya ku shaashaa soomaali leebaana soomaali gazambazo soomaali lacag badan bay leedahay waa tuugo haddana wuu ku baryaayay wuxuu kula waxay ka iibso anaa kula dhashay anaa walaalkaa marnaba axmaarka walaala ma nihin isku dan ma nihin isku dad ma nihin goormuu kula dhashay goormuu walaalkaa noqday goormaad isku ehel noqoteen waa ninkii adiga kula sheegtay walaalka ee qaraabada kula ahay ama maxay ahayd baalkii maxay tahay ehelka kula ahayna inuu noqdo xitaa aad kii hadda hiirad sheekadu ka dhawaajiyo kale hooyada kuway isla dhashoo kaleeto loo kala geeyo maxay tahay qabiil mushkiladana haysata iyo dhibkana haysta xaguu ka yimid yaa noo keenay ilaa dowladii dhexe ay baaba'day dowladda cadaalada maana helinin xageena la ka asiibay xagee nooga timid in yar haddaan kasoo qaato kaleeto sheeka soomaali waxay labadii nin qabiilna kama hadlayo cidina hadhowgeysnin labadii nin oo nina ahaa reer waqooyiga nina ahaaye yani sheeko yaraan ku salaysa dhibaatada madaxdeena ama dhibka uu yahay nina raxan weynka ahay markay wada sheekaysteen ninkii wixii meel bay tageen in yaraa sheekada kasoo qaat meeshii markay wada tageen oo lahaayeen imtixaan yani isbeer baarti dukaan ah isbeer baartigii dukaankii markay wada tageen ayuu wuxuu yidhi ninkii oo reer waqooyiga wuxuu ku horeeyey sheekada waxaan ma taqaan baa layidhi beri walba markii la weydiiyey walaaga walla beri horaan daadiyuu yidhi kii raxan weyn uu dhagaysanaya wuxuu yidhi ninkani maanta wuxuu daadiyey waa okay adigu iska fadhiisa war adigu maxaa taqaanaa adduunka bintii joogeeka inka failantu yidhi umaan jiro dha walaaga usaa daadiya aniha gurbiyey labadiiniiba iska baxa banaanka taga
كيرا وغيسوا هذا فيرنا يساو تاجن أيو كي كلو حير أوكي أنا شغفاينا كي هاي هو بها من شيء ليندر يريد ديتو إذا يكون درس كائن سيدا إذا أسكت شيء وهذا ولا يقص هاي صداي سوق إنجاي إنجا قداي ما دي بس أنا كهلاو يا ما قاعد إنسان ده وعين كاسولها كي ما نتيجه ده وعين سيدو وعين كأولها أيه حيري كي روقين وشكل وايغا والله حيرا نيارد نعم مقالة بسعرة دميران حاجين وكتبنا خوي بير أرمها كابو غلبوي ما كسير أوكي جاي كده نراسي ويا عين وحبوا من القرآن كودن بينو عين كي يقانو يا قرآن كدنبا إنه عين كي يقانو من المركو ده وعين كامل كلا يسكنوا وشكينه وشكدوا كده الموت كان قوين كده ما دي قرآن كبيه عندي عرفها كبلا بس لك عندنا اليوم أنتي يوسف ما يقول ده ما عندنا لما تدتك وقبل داس أنا هكبلا تجي أنا كيجي مركا مشكلة دو محي إنا قلت محي كتا أنت هاي حجينا لك عصيبي وحنا لك عصيبي وحوي متقانا سامعني عدنا ما لحق سعودين مجال سعود ويسكمان ديمان ما لحقنا لنا لك عصيبي مركي وريت عيان حنا لو دي المال قرضة نينك جيل جريسو كفي عني هاي نينك حافيز كفديا حافيز كيسو كفي عني إنه كراني نمضوا حقره نينك محي تعيد مضوا ملحظة وملتري جامية ملتري نمديسو كفي عني هاي دوليا نينك دوليا إنه هذا نين وليبا ماشي نينك وسير كمالية ده مسير كمالية ده إنه هذا لكن ما ينقنين وحوليبا وحال اسكو داري معي هيتين نين والبا شقا وصلهين أيا لو ديبي حاجات قبطا مركا شقا حاجات كبلاودا حاجات معي هيتين هداد كراني هيت ديارة ودلو يرامي ديارة دودي كرتا ومايا هداد تقانا معي هيتين بالكيشة هداد اندر ولي ما أقول اندر ولي ما ودلو يرا ومايا هداد وحاوي ديبكا إيا ديباتا دانا هيستا وحاوي داد عن شغل كلهين قبيالة ديو تاغن ولا سو متحي أيامنا لو كيري قبيالتنا ووحى حن ودتك قلا جرى عذر كحن ما جرته قبيالتنا أوكي مركع على أي حال إلهي سبحانه وتعالى أي محيهتي هنوصقر نبكينا وحوي محيهتي ولا ليال annaga ayaa isku Soomaaliya inaga ayaa isku dada inaga ayaa isku diina wadanka kaliya isku dhaqan isku diinana jira boqolkiiba boqol Soomaali waa islaam baliira islaamnimada nadiimada xagee ka baxday cidi waru ma hayso meel ay ka baxday iyo boqolkiiba boqol muslim baanay qoomuluud baana la ka helay subhanallah waa cid walba naga soo baxday okay qabyaaladii waa waxa hadda dadka lagu hogaaminayo waxaan ku leeyahay madawada qabyaalada lama ogolo dastuurka wax ku dhaq kii ilaahay badiiday masaajidkii adaa diiday culimada islaamka allaysay diinta dadkii laga daaracan jiray adaa dishay macallimiintii iskuulka aqoon la'aan waa iftiin la'aan beetay Soomaalidu gaaladuna same way the life is the knowledge without knowledge is not the life haddii indhaha laga xiro والله إنه تسكحرته محادو جدا وحبا أقل كادين الكلجات دمية محادو جدا وحبا دو جدا ملا ده إن دوليال أيانا لو ديبي مركي دتك إن دوليال كان لو ديبي أنا بتجر نقدر عن كوان سيدي سيدات كيلو قلا دمر كيلو كفصده لا لايو عروتي لا لايو أن لا أحسن دين نينك حبدا كبورة دي أن لا آدين مركو كانوا هالكان كسوري داتي لا كايس كعلي أبو محي وحالي جرى أبو نينك وين يقعلي نينك يرجعلي نينك وين يسكعلي نينك وين وكاحشان حلي وربلاي هلا منك يركض ربحك ورا ديك تبلغ وحدي أبينا أبانا عروري يروك لما تدي لك العزة حتى تدي ليس عروك يركا مركا وحيتها هاي Soomaalida meel walba oo iskugu nimaadno ama laga wada hadlo qolana waxay ka hadashaa sidii dadkan loogu gurman lahaa ama wax loogu qaban lahaa ama qolo kalena wax kale ka hadashaa dib iyo lugooya laga hadlaa marka qof waliba waxa weeye wadanka qarannimadii Soomaaliya oo duntay inaan anagu soo ceshano axmaar waluuna ku soo celinaynin
kuu keenaynin wuxuu kaa daadiya maalin wax kale uusan ku siinaynin gabadhuu kaa kufsado nin ragoo maxay tahay gabadhiisii xaaskiisa loo dabamaro axmaar baa leh madfac masaakiin lagu dariyaasho axmaar baa leh darisnimo aan la xanaaneyn maxay tahay aan la qadarin axmaar baa axmaar daaciflay anigu goormaan daris noqonay inuu madfaca dadku ku dariyaasho mooyo daawo kale ma lihin marka calaa ay xaal waa mahadsantihiin walaalahayga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله ما شاء الله runtii waxaan leeyahay sidaan hore kugu sheegaba gabdhaha Soomaaliyeed Allah u siyaadiyo inaan la cayuuminaan rajaynayaan oo wax lagu faano gabadhaas waxaa la yiraahdaa Xaliimo Maxamuud Diiriye Xaliimo Saadiyo hadda waxaan jeclahay inaan u yeero hadii Allah awood leh ogolaado ayaan Maxamed Axmed oo ka hadli doonta kaalinta looga baahan yahay inay haweenku geystaan badbaadinta qaranka Soomaaliyeed marka ayaan waxaan dhihi lahay kusoo dhawaad ayaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمان وين السلام ولا له قلبت waxaa halkaan keenay inaan kala qayb qaato dhammaan walaalaha ka soo qayb galay barnaamijkan waxaan filayaa waxaan sugu nimid inaan ka hadlo barnaamij ku saabsan walaalaha dhibaataysan walay aniga hadal tiro badan ma yahay laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego inaan aad ugu mahadsantihiin dhammaan walaalaha ka soo qayb galay barnaamijka waxaan jeclaa inaad gacan weyn nagala geysataan waxqabadka dhammaan inaan lagu kala harin that's all thank you very much guys ما شاء الله الله كأجر سيا أيام حقنا وحنج على أنا وياه حسن وسمة حسن كافي مركا تسولو حسن كافي هذا أدوى ما سنتين راح ماشى في اليوم دمر كل يوم تي ردي وصوت ده هاي أم ما هو جاي أنا ماشى وحنقوها مرتي وهاي كل ورد يعني بيسوي لكن محمد دائن قبل يسمعوا هذا الرجال ناس كتير مركب نمر تالي وصل يستاهل كلام الشيء ما هذه مركب خلدات سمي إن شاء الله تعالى خلنا لقى هذا سيف عنا ليسوا إن شاء الله دو مركب ما أنت اللي قبل دي معلومة أن وحنديرنا هنا إنه أفغانستان يعني هجنت أنتوا شرع إسلام بيقول لي هاي نتكفر إنه معها مركب خلدنا إن شاء الله تعالى قول إيو لنجدي وحقات إن شاء الله تعالى طريقة سهلة متسمعة horta ani waxa ugu muhiimsan oo ka hadla waxa weeye laba arrimood midda koowaad waxa horta waddankeena Soomaaliya gabadha badan meesha jooga runtiina aad bay loo qiimeeyeen gabadha ku hadlaysa af Soomaaliga iyo af Waqooyiga iyo midka